Asalaamu calaykum waraxmatullaah waa idin salaamo dhammaantiin meel walba adduunka joogtaan walaaleyga qaaliga ah kusoo dhawaada muuqaal cusub haddii aad taa markii kugu horeysa oo na soo booqanaysid fadlan hanaga hilmaamina inaad subscribe-ka inoo saartaan gambaleelka yarka ah furataan si uu kuu soo gaaro wax walba oo cusub markii aan soo dhigo asxaabteyda hore aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan ay la socotaan ramadaan mubaarak meel walba adduunka joogtaan waxaa maanta inoo wadaa keegan aad iyo aadka u quruxda badan isla markaana aad ka heli doontaan khafiifkana ah insha allah isla socod wanaagsan haddana waxaan bilaabeynaa hawsheenii waxaan inta ku haysanaa 3 xabo ukun ah oo farajeerka mar hore aan kasoo bixiyey waxaan rabaa inay ahaato kuleelkeeda mid caadi ah qabowna aan ahayn kuleelna aan ahayn temperature-keeda yani normal marka waxaan isticmaalaynaa maanta makiinada casiirka si ay maaragta hawsheena fudeed noogu noqoto waxaan ku shubayaa 3 xabo ukun ah waxaan ku darayaa vanilla noocana isticmaalaya haddii aad boodarka haysatid waa isticmaali kartaa qaadada yartan waxaan ku shubanayaa hal qaado oo yar waxaan ku darayaa marka ukunta waxaan kaloo isticmaalayaa vinegarka white vinegar ama khal nooca oo blanka oo cadaanka ah qaado yar asagana ka isticmaalayaa marka intaana marka hore isku shiidaa si fiican isku dhex gelinayaa marka kadib waxaan ku darayaa qaybihii kale marka aad iyo aadaan u daarayaa makiinada si ay isku dhex gasho ukunta iyo khalka iyo vanilaha haddana waxaan inta ku haystaa koobkan sokorta ah marka qiyaasta koob hal koob kaarta isticmaalaysaa koobkaasana ku soconaysaa marka aan hadda waxaan inta ku haystaa koob sokor ah iyo wax yar asagoo rubac camal haafkana ka yar marka qiyaastana mida adiga ay kugu xiran waaye koobka isticmaashid lee ku soconaysaa burka sokorta wax walbo hadda marka waxaan isku qasayaa sokortii iyo ukuntii mar walba oo wax ku shubo si fiican u qasayaa ilaa ay isdhex gasho hadda marka waxaan koobka igu jiro saliid iyo waxaan isku soo darsaday butter ama zubdo saliidda keligeed waa isticmaali kartaa saa ujeedaa mar walba oo wax ku shubo makiinada si fiican u sii shidayaa si isku sii dhex gasho marka waxaan hadda inta ku haystaa koob caano ah caanahan sidoo kaleeto waxaa la rabaa inay ahaadaan mid oo maaragta temperature-kooda oo yani normal ah wax qabow oo dhan ma ku daraa waayo keega waxba u dhimayaa haddii aan qabow ku daro marka wax walba inay normal ahaadana la rabaa waxaan kaloo ku darsanayaa 2 qaado oo yoogarka blanka ah marka keega intaasuu ka kooban yahay qaybta oo yani aan makiinada ku shiidayo marka waxaa kaloo haystaa qaybta qaleelka ah burkii oo 2 koob ah waxaan kusoo darsaday wax yar oo cusbe ah iyo waxaan kusoo daray hal qaado oo baking powder ah waxaan kaloo halkan ku haystaa oo bakeerigan igu jiro nus oo cornflour ah ama nasha ama warankiila saa u taqaaniin noocan ah koobkan yarka haafkiisa intaasaa marka qaadada iskugu qasaa si fiican oo qaleelka ah intii aan ku darin keega qoyan ama aan soo shiiday marka si fiican aad isku dhex geliyay burburkii waxaasaa ka bixinayaa haddana marka waxaan soo qaadanayaa keegii aan diyaariyey waa isku qasayaa anigoo isticmaalayo shabaga oo gacanta ah meesha markaa marayo kale uma baahni inaan isticmaalo makiinad waayo keega diyaar waaye waxaan ku shubayaa burkii laakiin waa inaan ka ilaaliyaa burburka oo si fiican isku dhex geliyaa si uu u noqdo keeg maaragta naacim ah isla markaana wax aan lahayn burbur ah hadirtaa marka burkii marba qeybaan ku shubaa hal mar ma ku wada shubaa mar walba kasiraan ku shubaa aada u qasaa ilaa aan ku dhameeyo kadibna waxaan soo diyaarsanaa weelkii aan furanka la gelin lahaa furanka waa kasoo shaqaysiistay wuxuu ii kulaanaya ilaa adiga 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo ka hor inta aad keega gelin waa inuu kuleel ku noqdaa waxaan soo daaray 180 temperature-kiisa marka maasha Allah intii keega qasaa wuu isii kulaanayaa saxaabada ujeedaanba keega gabagabadiisa soo gaarna aad isku dhex gelinaysaa waa ka ilaalinaysaa inuu kuskuus ka yeeshto
maasha allah. Hadda waxaan soo diyaarsaday weelka furanka kula gelin lahaa. Waxaan soo mariyay saliid ama butter wixii aa heli kartid. Kadibna waxaan kor ka marinayaa wax yar oo bur ah. Hadda weelkii furanka la gelin lahaa diyaar ii noqday. Burkii aan marinayaa. Keegna diyaar uu yahay. Furankina waa kasoo shaqaysiiyay mar hore. Marka hawsha dhan waa gabagabo biidhnillah. Keegga ku shubaya marka burka ku dhameeyo. Kadibna furanka gelina. Furanka marka geliyo marka ugu horeysa waa iska daminaya kor iyo hoos oo ka shidan yahay. Qaybta hoose bas aan u daarayaa markii xoogaa arkay inay maaragtay xajamkeeda isbedelo oo kor ay u soo fuuri rabto wax yar ka dhiman tahay. Waxaa u shidayaa qaybta kore si ay guduud yar u qaadato. Marka maximum yani 20-25 camal uu ku jirayaa. Kadibna diyaar uu noqonayaa. maasha allah keeg aad iyo aad maaragtay u fudud isla markaana maaragtay waqti badan aan ka qaadanaynin waaye. Haddana waa kana diyaar uu noo noqday. Furanka waa kasoo bixinay wax yar u sugay ilaa 10 daqiiqo. Kadib waa gedinayaa. maasha allah si sahal uu noogu soo baxayaa. weelkan kuma dhagaayo waayo waxaa marinay saliid iyo bur. maasha allah kalarkaas quruxda badan oo noogu soo baxay. keeg yar oo naacim ah jileec ah isla markaana maaragtay waqti badan qaadanaynin. Ciida aad iyo aad ugu wanaagsan. hadday arabtid maaragtay xalwa ku cuni kartaa kaligiisa cuni kartaa casriya ka dhigan kartaa. maasha allah waqti dheerna ma ka qaadanayo wixiisa dhan sahal waaye. gudahana saano ka noqday ma ujeedaa maasha allah sponge-gaas quruxda badan leh oo khafiifka ah. asxaabay haddii aad ka hesheen videogan like noo saar asxaabtada la share gareey. insha allah intii aan ku kulmi doono fiidiyaasheena soo socdo waxaan idinkaga tagayaa kheyr iyo nabadgelyo. مع السلامة.